waday kolba waxba la sheegi jiray bariyii hore sixirada marba la oran jiray hadaad waxa samayso markaad inta samayso hadaad salaantaada u tagto inamay dhalaysa waa una qoomihii basharku soo wadwaday waa la soo waday haday islaantu waxaan cunto ilmay dhalaysa haduu ninku waxaan cuno ilmu dhalaya waa la soo waday waxay soo gaadheen xad markii dambe ay yiraahdaan bas islaantu shaqaba kuma leh koromosomiskeedu waa x shaqa kuma leh waa ninka mima indaafiqa ninka ba dakarkiya unsuuba ka yimaada ninka oo kaliya ayaa x and y dabeetana labadatan aayadka quraani way sheegayaan ninka kan min maniyin yumna inuu ilaahay ka abuuro maxay adakara wal unsa laakiin xadiista nabiga waxay kala sheegayaan haweenka maageedu haday culuwi ama sabq sameeyaanna inuu unsan noqonayo ninka maagiisu haday culuwi ama sabq sameeyaanna inay maxay dakar noqonayo mas'aladaasi saynisku horu fahmi kari waay biyahan kuwan haday kor noqdaan iyo kuwan haday kor noqdaan wareegasiya way gaban ninkaasi daba yiraahdaan gabadho eegasaga sunbaysida darfal gabadho shaqo kuma leh ee waa ninkuun hadii eegaskiisu la kulmayo hadii waygiisu la kulmo kromosomka ninku maadaama uu isagu يعني أصلياً unuga qofka bini aadamkii ka kooban yahay waa 46 koromosoom hal unuga qofka bini aadamka ku jira ayuunba 23 waa unuga taranta gabadhu waa 23 unuga taranta ninkuna waa 23 labadaas 23aad ba markay isu tagaan waxay noqdaan maxay 46 unuga ragga ee taranta ayaa markaa wuxuu isugu jira mid 23 dhadiga iyo mid 23 laba haweeneyda keedu waa 23 dhadigo qurabay leeyihiin laakiin 23 ka dhadiga haweeneydu haday 23 ki dhadiga ninka la kulantana dhadig buu noqdaa haday 23 ki laba ninka la kulantana nin buu noqdaa saadaradeed bay yiraahdaan gabadhu markasta dhadiguunba ka soo socdo saadaradeed ma shaqaba kuma leh dhawaan waqti aad u dhow ayaa waxa la ogaaday mas'alad dambe oo madaxeeda ma jawr rogtay waxa la ogaaday beedka haweenku dawladda inta uu ku soo jiro inuu electrified noqdo dabeetana inuu ama positive noqon karo ama negative noqon karo ama neutral noqon karo hadduu positive noqdo iyo hadduu negative noqdo iyo hadduu neutral noqdo waa saddex qadiyadood oo kala nooc ah waxay kala ogaadeen manida ninku spamiska agaska iyo kuwa waayga inay qaarna positive iyo qaarna negative yihiin islaanta beedkeedo negative ah xaaladu joogo hadii maxaa aqbali karaa duu negative matalan yahay negative iyo positive bay soo jiita haduu ka kalena negative yahay maxaa dhacaya weeraysa idan islaanta beedkeedo negative haduu ninka labka kiisa labu negative yahay maxaa dhacaya weeraysa chance male uu ku laboobo ilma dhalanaya waa inuu noqdaa kan kale ee positive ka inuu la kulmo haduu cagsiga islaanta beedkeedu yahay maxaa dhacaya ki positive ka bay yeeraysa de Soomaha two positive ismiye kulmaan magnetismka marka dhigan jirteen muxuu aan jiray wixii soo eegina waa kala yaacaan wixii kala gadisanina way soo jiitaan Soomahayn waxaynu islaanta beedkeedu wuu isbedeli karaa wuxuu noqon karaa positive wuxuu noqon karaa negative wuxuu noqon karaa neutral saddexdaba uu noqon karaa labka iyo dhadigan wadaygu sidaana midna waa positive midna waa negative idan chances ka inuu ka negative ki la kulmo kan waxay ku xidhantahay inaanu kan ahayn isna negative hadduu negative noqdo waa maxay repulsion baa dhacaya marka waxay sawiraan marka maridii ninka oo mesela inta kan negative noqotay kuwii negative ka haydib soo yaacayaan inay baadka qabtaan xaqiisa daayay kuwii positive ka quray ku sii socdaan idan chanceski labnimadu uu lumaya cagsiga chanceski dhadignimadu uu lumaya markay neutral ka tahayna labadaba waa aqbalaya bay yiraahdaan two different charges bay wadataa labadaba soo jiidan kara idan hadda waqti aad u dhow ma ha waqti fogba scientifically waqti aad u dhow oo researchskeedii socdaan bay waxay ogaadeen inuu dakhli ku leeyahay haweentu xaaladda ay ku sugantahay bale waxay yiraahdaan 70 to 80 days sanadkii ayay negative 70 to 80 days sanadkiina waa positive inta kalena bay yiraahdaan waa
حتى maalmihii bay kuwa yihiin 70gaas xagee ku dhacayaan waa mas'ala kale حاجة كل عيام مسألة كله لكن واحد لين 70 to 80 days أي negative day that means 70 to 80 days أي chances كأوجو بدن ويهين النقطة علمه الله 70 to 80 days إن chances كأوجو بدن علمه حنقنا يا محي ددق أنت كلنا و chances سلاك بيلين ددق يلا حنقنا يو وحيابك كلو بدن حكومة وجيران عموما ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا waxaan leenahay saynisku koris buu ku jiraa koris ayuu ku jiraa maalin walba shalay waxaan la ogeyn baa maxay maanta la soo ogaanaya laakiin qaacidada rasmiga waxay tahay wax kasta oo taxta al-mushahada yimaado intii ugu dambeysay la arkaa inaanu khilaafi karin nusuusta daahirkeeda caamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu soo dejiyay quraanka iyo waxyigu quraanka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi sugaysa waxaan ku soo koobaya marka mawduuca kani waxaan baa isku dayay umuumiyaadkiisa inaan sharxo ama juziyaadkiisa iyo amthiladiisu hayn waqti badan iyo hadda in mawduuc gaar ah laga warramo waayo mawduucul janiin oo qura laga yaabi lahaa 2 saacadood 3 saacadood inuu qaadanayo inaynu isku dayno nusuusta soo aroortay inaynu soo ururino qoladan kale waxay sheegeen inaynu soo ururino sharaxno waxa laga yaabaa roobka iyo sidoo uu qura nusuusta quraan iyo xadiis ku soo aroortay inaan soo ururino scientific proof ka soo ururayna inaan soo ururino isla muxaadaro yani ay mas'ala laga warramo waxa laga yaabaa cilmiyan hadii la israa uga warramayna u baahan tahay maxay saacad laakiin waxaan rabaa inaan tilmaamo inuu yahay nooc min al-i'jaaz maanta dad badan oo culimo oo waaweyn oo faniyada tan khabiir